السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضيدا سودو هذا كسودو Greenways Academy وأستاذ عمر حراد. ما أنت عشر كهالكان أنا كوبران دورنا وحرير لي هاي عشر هوري أن أقاضني وأن أقصو ورهمي 8 parts of speech. شن بان سو قاضني هذا حسوستان ومقال كيهورا صودا وتن. شن تان سو قاضنا وحيك هايين verbs, nouns, adjective, pronoun يا adverb. وسو شرحنا يسيد الله استعماله يسيد الجملة عاد وقلين كرتيد. وحينو هرت مركز سديد سدح كمدا. saddexda aan muuqaalkan aan ku baran doono waxay kala yihiin preposition, conjunction iyo interjection. saddexdaas maxay yihiin sidee u isticmaali kartaa jumla ahaan luqadda grammarka maxay ka caawinayaan ayaan insha Allah muuqaalkan ku lafa guri doona haddii la yiraahdo. Dhammaantoodna mid baa muuqaal uga soo sameyn doona anoo gudaha u sii galayo sababtoo ah intaas kaliya loogama tagi karo. mid walba wuxuu u baahan yahay 10 gooni in laga sameeyo, verbka 10 gooni in laga sameeyo, nounka intaas oo kala baxaan, verbka sidoo kale pronoun-yada. marka sida ugu macquulsan oo aad wax ku baran kartaan ayaan idinku sharaxi doonaa. kanaalkana ka mid noqda, noo subscribe gareeya si aan u gaarno 1 milyan subscribers. muuqaalkan aad buu u dheeraan doono, maybe muuqaalka la gareeso koobka qaxwada soo qaado. Let's go. midka ugu horeeya baranayno preposition. Preposition waxaa la yiraahdaa meeleeye. waxyaabooyin badan ayuu preposition ka taabtaa, noocyo badanna ayay u kala baxaan. types of preposition waxaa ka mid ah preposition of place, preposition of time, preposition of direction, preposition of reason iyo preposition of method. intaas ay u qaybsamaan. kan ugu horeeya kala preposition of place wuxuu ka waramaa shay meesha uu ku sugan yahay marka aad rabto inaad tilmaamtid. waxaa ka mid ah tusaalooyinka sida in oo kale, on oo kale, at oo kale, between. kuwaas waxaa la yiraahdaa preposition of place. in waxaa loo isticmaalaa inside something. shay marka aad rabto inaad tiraahdo gudaha ayuu ku jiraa waxaa isticmaalaysaa in. tusaale ahaan the keys are inside the box. furayaashu waxay ku jiraan kartoonka gudihiisa. haddii marka preposition la'aan jumladaas ay noqon lahayd waxay noqonaysaa the keys are the box. wax macnaha ma sameynayso. marka waa inaad sii tilmaami kartid halkee bay ku jiraan, halkee yaalaan furayaasha. waxaa leedahay in ayaa isticmaalaysaa. waxaa sidoo kale dhigi kartaa she is in the room. ayada qolka ayay ku jirtaa. qof baa ku weydiiyey where is she? gabadhi meeday? you say she is in the room. qolka ayay ku jirtaa. It means what? She is inside the room. on ayada waxaa u isticmaali kartaa marka aad rabto inaad tilmaamtid shay meesha uu saaran yahay oo kale. waxaa dhigi kartaa the book is on the table. buuga tableka korkiisa ayuu saaran yahay. ama waxaa dhigi kartaa he sits on the sofa. asagu wuxuu ku fadhiistaa fadhiga. he sits on the sofa. marka waxaa sii tilmaamaysaa si gaar ah qofku halkeebuu ku sugan yahay ama shayga halkeebuu ku sugan yahay. waliba marka aad meel aad ku fadhidid oo kale waxaad adeegsanaysaa on. waxaa sidoo kale isticmaali kartaa at waxay ka mid tahay preposition of place. waxaa u adeegsanaysaa marka aad isticmaalaysid specific point. tusaale ahaan markaa rabto inaad tiraahid meet me at the bus stop. waxaan ku kulmi karnaa at the bus stop. ama haddaad tusaale ahaan kale qof baa albaabka taagan oo kale there is someone at the door. qof ayaa albaabka taagan. waxaad isticmaalaysaa markaa rabto inaad qeexid specific point. markuu qofka meesha ku sugan yahay waxaa leedahay at ayaa adeegsanaysaa. she is at the door. meet me at the bus stop. they are at the coffee shop. ayaku meesha lagu qaxway ayay ku sugan yihiin. marka at waxaa u isticmaalaysaa specific point. preposition of place waxaa kaloo sidoo kale ka mid ah between oo kale. between waxaa weeye u dhaxeeya oo kale, yani between two things oo kale. tusaalehaan haddaad tiraahid the shop is between the bank and the school. dukaanku wuxuu u dhaxeeyaa iskuulka iyo bankiga. tusaalehaan sidoo kale waxaa dhigi kartaa she sits between her friends. ayadu waxay fadhiisataa saaxiibadeed dhexdeeda ayay fadhiisata. tusaalehaan fasalka oo kale. marka between waxaa u adeegsanaysaa between two objects oo kale ayaad u isticmaalaysaa. midka xigo preposition of time. Preposition of time is used to show when something happens. waxaa loo isticmaalaa
waqti wax dhacay oo kale markaa ka warramaysid waxaa ka mid ah in, on iyo at. Place markaa ka soo warramayna in, on iyo at waa ka soo warramay oo shay meesha uu ku sugan yahay. Sidoo kale in, on iyo at waxa u isticmaali kartaa waqti markaad ka warramaysid. Tusaale ahaan oo kale hadda in oo kale waxa u adeegsan kartaa months oo kale, bilooyinka oo kale wax la xiriiro, bisha aad dhalatay oo kale, years oo kale, sanadka oo kale iyo long period waxa u isticmaalaysaa in. Tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa I was born in 1994. I was born in January. Ma dhihi kartid I was born in Tuesday 1994. يعني maalinta aad sii dhalatay markaa rabtid inaad isticmaashid in ma adeegsanaysid. So on ayaa marka waxaa loo isticmaalaa days iyo dates oo kale taariikhaha. So tusaale ahaan markaa rabtid inaad tiraahdid shirka wuxuu dhacayaa Isniin, waxaa leedahay the meeting will happen on Monday. Meetingku shirku wuxuu dhacayaa Isniin. So marka on waxa u isticmaalaysaa maalmaha oo kale iyo taariikhaha specific ah. In waxa u isticmaalaysaa bilaha, sanadka iyo long period oo kale. So marka waa inaad saas oo kale ogtahay. Atna waxa u isticmaalaysaa specific time oo kale. Tusaale ahaan oo kale haddaad rabtid inaad tirahdid waxaan kulmaynaa 10 p.m. waxaa leedahay let's meet at 10 p.m. ma dhihi kartid let's meet on 10 p.m. ma dhihaysid. So when you want to talk about a specific time, waqti cayiman markaa rabtid inaad sii tilmaamtid, at ayaa isticmaalaysaa. That's why in, on iyo at waxa u adeegsan kartaa as a preposition of time and also preposition of place. waxaan rajaynaynaa saas u fahantay. Marka waa in shuruuciyada si loo kala adeegsan inaad arki kartid waay. waxaan dhahnay in waxa u isticmaalaysaa bilaha, sanadka iyo long period. So marka waa inaad saas u kala ogtahay sida aad u isticmaal lahayd in, on iyo at markaad ka warramaysid time. waxaa xigo preposition of direction. Preposition of direction waxa u isticmaali kartaa markaad jiha aad ka warramaysid. tusaale ahaan waxaa ka mid ah to oo kale, into oo kale, towards oo kale marka aad leedahay. So kuwaas waxaa yiraahdaa preposition of direction. So to oo kale it shows marka meel loo socdo kale. Like an example, I'm going to school. Aniga waxaan u socdaa iskoolka. So to ayaa isticmaalaysaa. So means what? Towards something. Okay, I'm going to school. Iskoolka ayaan u socdaa. Into waxaa loo adeegsadaa oo kale movement or action la socdo kale. Like when you want to say the cat jumped into the box. Bisadu waxay ku booday boxka gudihiisa. So hadaytu waxaan soo isticmaalnay in oo aan dhahnay gudaha anagoo tilmaamayno. So in waxaa loo adeegsadaa wax shaygi oo maaragtay wax movement ah aanan wadin oo meel ku sugan. Laakiin into waxaa u isticmaalaysaa gudaha laakiin movement la socdo. So bisadu way soo booday. So the cat jumped into the box. kartoonka gudihiisa ayay ku soo booday, soo gashay. Laakiin in markaan aan dhahnay the keys are in the box, furayaashu waxay ku sugan yihiin kartoonka gudihiisa. So in waxa isticmaalaysaa without motion, there's no movement. Into there is movement. waxaa sidoo kale adeegsan kartaa towards. So towards waxaa loo isticmaalaa direction of, markaad jiha aad tilmaamaysid sidoo kale. Like you can say she walked towards the door. waxay u soo dhaqaaqday albaabka xaggiisa. So towards waa jiha oo kale markaad tilmaamaysid. Okay, you say she walked towards the door. albaabka xaggiisa ayay u soo dhaqaaqday. marka prepositionada saasay muhiim u yihiin. waxaa xigo preposition of reason or purpose. waxaa ka mid ah oo kale for oo kale iyo because of. So marka rabtid inaad tiraahdo so for oo kale waxaa loo isticmaalaa purpose. waxaa dhihi kartaa this gift is for you. hadiyadan adiga ayaa lagugu talagalay. This gift is for you. hadiyadan adiga ayaa lagu. So for it means what? Reason or purpose. Okay, waxaa sidoo kale isticmaali kartaa because of. Tusaalahaan oo kale shay ayaa dhici waayay. sababta uu dhici waayay oo kale markaa rabtid inaad tilmaamtid. waxaa dhihi kartaa the match was cancelled because of rain. ciyaarta waxaa loo joojiyay oo loo baajiyay roob dartiis. Because of. So because of now it is preposition of purpose or reason. Forna waa purpose oo kale. This gift hadiyadan is for you. adiga ayaa lagugu talagalay. waxaa xigo preposition of method. yani waxa la isticmaalo kale markaa rabtid inaad ka warrantid.
tusaale ahaan oo kale by iyo waxaa ka mid ah with oo kale. So by is used maaragtay as means of transport markaad inaad ka hadashid waxa aad ku safartay oo kale. So waxaa leedahay I traveled by bus, waxaan ku safray bus. So by you can use markaad ka warramaysid means of transport waxa aad ku safartay. So method maxaa isticmaashay? I traveled by bus. Train maad isticmaalin, diyaarad maad isticmaalin. So you say what? By bus. Okay, tusaale ahaan oo kale waxaa rabta inaad tiraahdid warqadda waxaan ku jaray maqas. waxaa isticmaalaysaa with. So that one also is what? Instrument or tool markaa isticmaalaysa sidoo kale. So you can say I cut the paper with scissors. warqadda waxaan ku jaray maqas with maxaan isticmaalay. So what tool have you used? So kaasna waxaa la yidhahdaa preposition of method waxa aad isticmaashay sida by iyo with oo kale. haddaba markaa prepositionada sidaas ayaa loo kala isticmaalaa sida place oo kale markaa ka warramaysid shay meesha uu ku sugan yahay, time oo kale markaad ka warramaysid waqtiga wax dhacaya oo kale, markaad ka warramaysid reason ama purpose oo kale ama method kuwii hadda aan tahay oo dhan. intaas oo dhan waxaa la isku yidhaahdaa preposition. luqadda ayayna waxay u sameeyaan dhadhan. haddii aad ka tagtid jumladaada ma sameynayso wax micno ah. 8 parts of speech waxaa sidoo kale ka mid ah conjunction. Preposition waa sharaxnay waxaan rajaynaa inaad si fiican u fahamtay. Conjunction waxaa la yidhahdaa xiriiriye. So conjunction joins words, phrases or sentences. Conjunctionku marka wuxuu isku xiraa erayo, phrases, jumlooyin yaryar iyo sentences iyo jumlooyin ballaaran. So conjunctionadu marka waxay u qaybsamaan coordinating conjunction, subordinating conjunction iyo correlative conjunction kuwa la yiraahdo. Coordinating conjunctionsku waa xiriiriye oo iska caadi ah oo yar. Subordinating conjunctionskuna waa xiriiriyaal kuwa xogaa yar dhaadheer. Coordinating conjunction waxaa ka mid ah and oo kale, but oo kale, so. intaas waxaa la yiraahdaa coordinating conjunction. So tusaale ahaan kale waxaad darteed inaad tiraahid I like tea and coffee. waxaan aad u jeclahay shaah iyo qaxwo. So laba jumlo ayaan isku xirnay meeshaas. meesha aad dhihi leed I like tea iyo I like coffee. So marka waa laba jumlo. So marka waxaad rabtaa labadii wax inaad isku xirtid. waxaad isticmaalaysaa marka and. So you say I like tea and coffee. waxaan ka helaa ama aan jeclahay shaah iyo qaxwo. But oo kale sida u isticmaalaysaa. waxaad dhihi kartaa he tried hard but he failed. aad ayuu iskugu dayay laakiin wuu ku dhacay. So but waxay keenaysaa wax la yiraahdo in labada hadal ay iskhilaafaan. He tried hard, aad buu iskugu dayay, but he failed, laakiin wuu dhacay. So oo kale sida u isticmaalaysaa. waxaad dhihi kartaa you can say we were tired so we rested. waan daalaneen haddaba waan nasanay. We were tired so we rested. waan nasanay. So meeshaas marka waxaa isku xirtay laba jumlo ayaa isku xirtay. So kuwaas marka waxaa la yiraahdaa coordinating conjunction. midda kale waxaa la yiraahdaa subordinating conjunction. So kuwa hadda tilmaan waxaa la yiraahdaa coordinating. So subordinating waxa weeyaan waa conjunction oo isku xirto dependent clause iyo independent clause. Dependent clause waxaa la yiraahdaa jumlo kaligeed aan istaagi karin. Independent clause waxaa la yiraahdaa jumlo kaligeed istaagi karto. Subordinating conjunctionada marka waxaa ka mid ah because oo kale, if oo kale, when, although. So kuwaas waxaa la yiraahdaa subordinating conjunction. laba jumlo ayay isku xiraan mid dependent ah iyo mid independent ah. Because oo kale waxaa u isticmaali kartaa waxaa dhihi kartaa I stayed home because it was raining. I stayed home because it was raining. So I stayed home. guriga ayaan joogay. waa jumlo dhameystiran. Because it was raining. roob ayaa da'ay. hadda marka because it was raining waxa weeyaan waa dependent clause. jumlo kaligeed istaagi karta maan. Because it was raining hadda ku dhaho hadalkaas ma dhameystiran waxbaa ka maqan. laakiin haddaan ku dhaho I stayed home guriga ayaan joogay waa jumlo dhameystiran. So marka because marka waxay sameysay dependent clause iyo independent clause ayay isku xirtay. I stayed home
guriga ayaan joogay because it was raining roob ayaa daayay so because saas aa u isticmaalaysaa if oo kale waxaad u isticmaali kartaa you can go home if you finish your homework guriga ayaa aadi kartaa haddii homework aad dhamaysid marka way isku xiran tahay you can go home if you finish your homework so there is dependent clause iyo independent clause if marka waxaan u isticmaalnay as a subordinating conjunction when ayaan rabnaa haddana inaan sidoo kale jumlo aan gelin waxaan dhihi karnaa I will call you when I arrive I will call you when I arrive waxaan ku soo wacayaa marka aan tago so marka way isku xiran tahay when waxay isku xirtay labadaas jumlo although ayaa sidoo kale ka mid ah subordinating conjunction so waxaan dhihi karnaa she cooked lunch for us although she was tired qada ayay inoo karisay inkastoo ay daalaneed so she cooked lunch for us waa jumlo dhammaystiran laakiin although she was tired haddaan ku dhaho although she was tired hadal dhammaystiran maahan marka although labadaas jumlo ayay isku xidhisaa she cooked lunch for us although she was tired so kuwaas marka waxaa la yidhahdaa subordinating conjunction waxay isku xiriiriyaan dependent clause with an independent clause sida if when although waxaa la yidhahdaa subordinating conjunctions midda kale waxaa la yidhahdaa correlative conjunction correlative conjunction waa conjunctionno laba u socdaan waxaa ka mid ah either or neither nor both and so tusaale ahaan oo kale either or oo kale waxaad u isticmaali kartaa waxaad dhihi kartaa either you come now or you stay home hadda imow ama xaafadda iska joog either you come now or you stay home xaafadda iska joog so marka waxaa isticmaalay laba conjunction oo wada socda neither nor waxaa u isticmaali kartaa marka aad wax negativity ay jiraan oo kale tusaale ahaan neither she likes tea nor coffee neither she likes tea nor coffee macnaha waxay tahay labadaba ma jeclo shaahna ma jeclo qaxwana ma jeclo so waxay isticmaalaysaa two conjunctions that shows negativity so you say neither she likes tea nor coffee both iyo and ayadana way wada socdaan oo waxaa la yidhahdaa correlative conjunction waxaa dhihi kartaa both Ali and Ahmed are absent both Ali labada way maqan yihiin so and aya iyo both ayaa isticmaashay both Ali and Ahmed are absent Ali iyo Ahmed labada way maqan yihiin so marka kuwaas waxaa la yidhahdaa correlative conjunctions waxay u socdaan labo so marka conjunctionadu marka waxaan dhahnay waa xiriiriye jumlada ayay erayo iyo jumlooyin iyo phrases ayay isku xiraan conjunctionadana waxaan dhahnay waxay u qaybsamaan saddex coordinating conjunction subordinating conjunction iyo correlative conjunction saddexdaas waxaa la isku yidhahdaa conjunctions midda ugu dambeyso oo 8 parts of speech waxaa weeyaan interjection interjectionku waxaa weeyaan it's a short word that is used to express emotions or reaction marka aad rabto inaad soo bandhigtid dareenkaaga oo kale erayo yaryar oo la isticmaalaya waxaa la yidhahdaa interjection waxaa ka mid ah sida wow oo kale surprise marka aad wax la yaabtid tusaale kale gaari waxaa aragtay aad u dheereey wow that car is so fast aad ayuu dheereeyaa so wow surprise oo kale markaad ka warramaysid hey oo kale when you're calling someone you say hey listen to me dhegeyso hey so waa short words badanaana waxay wataan exclamation calaamatu tacajub okay sidoo kale waxaa isticmaali kartaa yay oo kale markaa rabto inaad ka hadashid happiness oo kale yay we won the game yay we won the game so waa short word oo aad u isticmaali kartid happiness oo kale waxaa sidoo kale ka mid ah ouch waxbaa kugu dhaca oo kale ouch it hurts yani maarta meel baa ku xanuuntay ama dhagax baa kugu dhaco kale iyo xaalada marka ouch ayaad isticmaalaysaa so those short phrases oo aad ku soo bandhigaysid sidoo kale emotionkaaga iyo reactionkaaga ayaa waxaa la yiraahdaa interjection badanaana waa informal oo luqadda
maaragtay waa luqad rasmi ah ma ahan laakiin waa la isticmaalaa luqadaada ay sidoo kale ay horumarinayaan so marka halkaas waxaan ku baranay preposition conjunction iyo interjection haddaba insha Allah muuqaalkeena halkaas ayuu ku ekaan doonaa 8 parts of speech saddexdii ka dhigneed halkaas ayaan ku sharaxay waxaana rajeynayaa inaad si fiican aad u fahantay preposition sida loo isticmaalo conjunction sida loo isticmaalo iyo interjection sida loo isticmaalo so practice more jumlooyin badan isku day inaad dhisi kartid exercise badan isku day inaad ka shaqeyn kartid haday jiraan wax aad fahmin commentiga ayaad igula wadaagi kartaa if you have any question muuqaalkan insha Allah halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa muuqaalkan muuqaalka xigeenta ka kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo